madasha wadatashiga dumarka dawladdeegaanka Soomaalida waa madal ay ku kulmaan sida axsaabta siyaasadda ee kala duwan hay'adaha aan duuliga ahayn ganacsatada barayaasha jaamacadaha siyaasiyiinta dumarka magaca ku leh dawladdeegaanka Soomaalida ujeedada ugu muhiimsan ee dumarku ay ka wada tashadaan waa sidii hawsha weyn ee dawladdeegaanka Soomaalida loo hayo qayb mugle ay uga qaadan lahaayeen documentary filmkan kooban ayaan ku milicsan doonaa ka qayb qaadashada dumarka ee siyaasadda iyo waliba caqabadaha ku gadaaman ee dumarku ayna horumar badan uga keenin dhinaca siyaasadda ugu horeyn maxay ka qabtaa diinta islaamku in ay dumarku siyaasadda galaan islaamku mas'uuliyadda noocyadeeda kala duwan basay doon ha noqoto ama nooc ha noqdo mas'uuliyad oo arrimaha bulshada ah mas'uuliyad arrimaha siyaasadda ah waa mas'uuliyad oo ka dhaxaysa labada jinsiba nin iyo naagba way ka dhaxaysaa wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'dhum awliyaa'u ba'd yani shaqadii waa la wada qabanaya ruuxa dumarka ah shaqadan loo dhiibayo hadii uu ahal u yahay oo uu ka soo bixi karo shaqooyinkii uu hayeen in dayacmin iyo xuquuqihii kale lagu lahaa bulshadii uu adeegi karaa uuna qaban karaa shaqada iyaga uu qaban karaa xilalka siyaasadeed ee ugu muhiimsan ee ilaa haatan dumarku dawladdeegaanka Soomaalida ay ka qabteen ayaa kala ah afayeenka baarlamaanka dawladdeegaanka Soomaalida iyo waliba madaxweyne ku xigeen waxaana jira hami badan oo dumarka ku jira sidii ay ragga qaybta ay qaataan oo kale ay uga qaadan lahaayeen siyaasadda ani waxaan aaminsanahay inay dumarku ilhaaniyan u leeyihiin hogaamin fiican ay sameyn karaan waxbarashadii ay barteenna ay kabayso diiniyana ay fasaxayso inay maxaan ay hogaamin karto in haweenku meelo badan inkasta oo dadka magaalooyinka degan ee dawladdeegaanka Soomaalidu gabdhaha iyo wiilasha isku si wax loo baro haddana dhaqankii adkaa ee ka jiray miyiga ee wiilka mudnaanta la siinayay ayaa wali ka sii jiray miyiga isagoo lagu tilmaamo in ka badan bulshada deegaanka 70% inay reemi yihiin dhaqamada ay dumarku inta badan ay la kowsadeen ee ay la dhasheen xagga guriga oo inta badan shaqada guriga culayska faraha badan leh ay dumarku ay qabtaan xagga fursada fiican ay ragu oo waxbarasho iyo maxaan dhahdayay faa'iido kalaba ay ka helayaan inay fursadaasi xagga ay gabadhu ka shaqeynaysa ay ragu fursad fiican oo diinta ay ku bartaan waxbarashadii kale ay ka helayaan ayaa iyada laftigeedu waxay sababaysaa inay hoos ay u dhigto dumarkii oo hogaaminta inta badan aynan ka muuqanin ayaan odhan karaa labadii xukuumadood ee deegaanka isaga dambeeyay ayaa fiiro gaara siiyay doorka siyaasadeed ee dumarka inkasta oo ka qayb qaadashada dumarku ilaa haatan aad u hooseyso deegaamada dariskeenna ama wadamada kale ee dariskeenna markaad barbar dhigto dumarka deegaankeena maxaafad iyo mucaaradba waxaan aaminsanahay ka qaybgalkoodii waa la maaragtay xisbiga ONLF oo kale markaan madashan isugu nimidnay Women Dialogue Space-ka waxay soo bandhigeen 3 gabdhood oo guddiga fulinta ugu jirta web sidoo kale gabadh bay soo bandhigeen annagana aniga hadda soo sheegay marka waxaan aaminsanahay annaga mucaarad iyo maxaafadba deegaanka iyaga ka qaybgalka siyaasadeed ee dumarku aad buu u sareeyaa malihi waa la gaaray halkii loo baahnaa oo maaragtay halkii loo baahnaa waa la gaaray balse marka la barbar dhigo maaragtay Soomaalida kale iyo even dadaan Soomaali ahayn oo dariskeena marka la barbar dhigo annagu waxaan aaminsanahay deegaankeenu doorkii ugu weynaa ayuu ka qaybgeliyay dumarka dad badan ayaa isweydiiya ma jiraan dumarku markay siyaasadda soo galaan waxyaabo ay kaga duwan yihiin ragga oo iyagu ay miisaan gooniya ku leeyihiin dumarku nabadeyntu ay ku fiican yihiin sidoo kale waxa weeyaan arrimaha dhaqaalaha iyo saving-ga way ku fiican yihiin waxaan aaminsanahay dumarka oo siyaasadda ka qayb gala nidaam fiican na uga qayb gala inay bulshada wax weyn ku soo kordhin karaan dumarka xubnaha ka ah madashan wadatashiga ee dumarka oo inta badan ka wada tashada arrimaha dhaqaalaha siyaasadda dhaqanka iyo waliba dadka danyarta tabarucaad loo ururiyo ayaa haddana waxay ii sheegeen inay kaga faa'iideysteen madashan in ay waxyaabo badan isku aragti ka noqdaan madasha wadatashiga haweenka waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay inaan hankayaga siyaasadeed kor u qaadno inaan fagaara ka hadalka baranno inaan madartay mar kastaba aan ku dhiirino inay dumarku mid yihiin dumarka inay wax diidi kara oo hor istaagi kara ayna jirin
inayna fasaxday diinta islaamku inay haweenku madartay markastaba ay kor u qaadaan hankooda siyaasadeed. haweenku hadday midoobaan, haweenku ay wada tashadaan, waxay madartay markastaba ay mideynayaan bulshada ka dambaysa. way haweenku waa laf dhabarta bulshada, waana hogaaminta ama macalinka bulshada weeyaan. diinta islaamka oo alla u soo dejiyey maslaxada adduunka isla markaana wax eexa aan aqoonin ayaa ciddii arrintaasi madmadow uu kaga jiro sheekhu u bayaaminayaa wax farqi aha oo xagga diinta dumarka iyo ragga oo diinta u kala eexanayso ma jirto. oo raggiina diintani ay la shaqeynayso sharciga islaamka oo iyagii ay xuquuq badan siinayso, dumarkiina inay xuquuq siinaynin. fahankaasi hadduu jiro fahan khaldan weeyaan. waxaa mar walba la xusaa in dumarku 50% in ka badan ay bulshada deegaanka ka yihiin, waxaana soo noqnoqota su'aasha ah sidee dumarku uga qayb qaadan karaan hawsha weyn ee loo hayo dowlad deegaanka Soomaalida markay noqoto dhinaca siyaasadda. gabdhihii horta in wax la baro weyn, gabdhihii waan waxba baran, oo dhaqaale loo samayn, oo nabad helin, ummadii Soomaaliyeed badbaadiyay. in nabad loo helo wax la baro gabdhihii, laga qayb geliyo dhinac walba, haday dhaqaale noqoto haday siyaasad noqotaba wax weyn bay ummadda ku soo kordhinayaan. dumar badan oo la kulmay ayaa ii xaqiijiyey in ay laba arrimood la hagaaseen markay siyaasadda noqoto. waa midda koowaad ee waalidka oo mar walba wiilka waxbarashadiisa ka hormariya gabadha. waa midda labaad ee odayaasha dhaqanka oo markii la yidhaahdo ruux ka soo tala bixiya isla markiiba dhanka wiilasha ama ragga uun u eexda oo u bata. waxaa lagu jabin karaa wixii dhaqanku keenay oo dhan xukuumadaha jira iyo mas-uuliyiinta hagaya xukuumadaha waqtigaa jira iyo xisbiyada jira jabin kara. waa la arkay in la jabin karo. waxaan xasuusanahay gabadhii u horreysay ee deegaankan ka tartantay inuu odaygeeda ku furo ku dalaaqay. gabadhu si ay wuxu noqoto isu anfacdo isla markaana ummadda wax ugu qabato maxay uga baahan tahay gurigeeda ama gurigooda. gabadha haddaan gurigeeda laga soo taageerino ama ninkeedu taageerino ama aabaheed taageerino waxba ma qaban kartaan. waa aaminsan lambarka labaad gabdhaha waxaa barteen baan leeyahay. labadaa qodob haddii la helo gabdhuhu way challenge gareyn karaan, wixii looga baahan yahay deegaan ahaan, dad ahaan way bedeli karaan. siyaasadii waa habka bulsho isugu timaado isuguna maamusho, ama waa habka ummado kala duwan isugu yimaadaan si ay u wada noolaadaan. daraasaddii ugu dambaysay ee adduunka dhinaca siyaasadda laga sameeyo ayaa waxay tilmaamaysay 23% in ay ka yihiin dumarku siyaasadda dadka hogaamiya, waxaana la xaqiijiyey inay dumarku ka badan yihiin 50% bulshada caalamka. haddaba caqabadaha dumarkeenna haysta ee ay siyaasadda la geli leeyihiin haddaan 1 iyo 2 nidhaahno. horta bal xagga waxbarashada oo ay dumarku ku hooseeyaan, inkastoo iminka isbedel weyn ay jiraan oo dumarku aad wax u bartaan. talabaad dhaqan ahaan oo kale inagu dhaqan uma lihin dan Soomaalinahay dumarku inay siyaasadda ka qayb qaataan. ta saddexaad waxaan dhihi karaa siyaasadda Soomaalida oo ku salaysan hab qabiilaysan oo caqabad weyn ku ah dumarkii. ta kale hab qaybsiga siyaasadda oo qabiil ku salaysan oo odayaal ay soo xulanayaan dadkii matali lahaa. taasina waxay keenaysaa in qofka dumarkii aynan meesha wax lagu goosanayo meesha raggu fadhiyaan ay maxaa la dhahaay aynan ka qayb qaadan. ta kalena generalisaan ogsoonahay dumarku xagga dhaqaalaha way ku liitaan oo way faramaran yihiin. dhaqaale la'aantaas laftirkeega waxay keeni kartaa inay saaxadda siyaasadda dumarka ay maxaa la dhahaay ay hoos uga dhigto inay ka qayb qaataan. marka caqabado badan baa jira oo dumarka u horseedi kara inaynan ka qayb qaadan. mar haddii laisla qiray in baahi badan loo qabo dumarka caqligooda, cilmigooda iyo xuduudoodaba in laga faa'iidaysto, islamarkaana siyaasadda ay ka maqan yihiin ama ay aad ugu yar yihiin, sidee caqabadahan la soo sheegay lagu xallin karaa si dabarka looga furo? haddaan qabiil laga tegin rag iyo dumar yaa tala qaban kara, yaase wax soo kordhin kara, yaa ummadda wax u qaban kara, yaa u shaqayn kara, yaa shaqada lagu aamini karaa, yaa ka go'naansho leh, yaa daacad ah, yaa nacam damiir leh, yaa wadaniyad leh. haddii wax lagu qiimeynayo intaba waa leenahay, kaalintayadana waa helaynaa. haddii lagu qiimeyn waayo laakiin arrintu ay qabiil iyo
iyo dhaqan iyo qoys ay taagnaato xukuumadda lafteedu ay ka gudbi weydo weligeed way taagnaanaysaa way jabaysaa annagana markaa waxay nagu kalifaysaa qabiilkii aan la diriraynay ee markii hore na xaqiray mid lamida intaan samaysano haween la dhaho oo qabiil walba leh qabiil walba oo gabdhood oo dumar ah magaca haweenka la yiraahdo leh 10 gabdhood oo isku qabiil ka soo jeeda xitaa inay noo gali karaan kaalintayada aan rabno waxbarashada gabdhaha lagula dadaalo oo maxaan dhahaayay qofkii si hadhow toole ula tartami karto qofkii in marka hore fursadii ay wax ku baran lahayd la siiyo talabaad dhaqankeeniyo waxyaalo badan oo aan dhaqan ahaan aan u sababayn gabadha inay ka qayb qaadato siyaasadda iyadana laga caawiyo oo maxaan ku dhahaayay ama in laga caawiyo oo laga hortagaa iyadana muhiima saddexaad waxaan dhihi lahaa qofku xaggan dawladda hadda dawladdu dadaal badan bay sameynaysaa hadda waxaan dhihi karaa 30% of baarlamaantiga Itoobiya inay dumar yihiin laakiin haddana still waa intii looga baahnaa inay ka hoos marsantaan anu aaminsanahay marka waxaa muhiim ah in xagga dawladuna iyo hay'adaha aan dawliga ahaynba ay siiyaan dadaal dheeriya si ay dumarku u soo koob garoobaan ama ay ka soo kacaan meesha ay taagan yihiin